السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوين وناكسن دابضيال كسو دوادا ورك هوين نمو بيسنس كونكت جنرال وان حرونتي سمقالة مقدشو قضابada warka haweenaha aad ku daawan doontaan waxa qaybka bangiga adduunka ayaa ugu yaboohi doona wadanka Soomaaliya lacag gaaraysa 137.5 milyan xilli Soomaaliya ee la daalaa dhacaysa xaalada kala duwan. wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa deeq iyo agab caafimaad gaarsiisay Dhuusamareeb. dad fara badan ayaa u soo dukaameysi taga suuqa Bakaaraha xilli wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ay ka digayso goobaha la isugu yimaado. akhbaaraadka caalamka ee warka habeen business connect aad ku daawan doontaan waxa qaybka Shiinaha oo beeniyay inuu dhac u geystay internetka Mareykanka. intaasina waxay ahaayeen qodobada warku ugu door corona iminkana u diyaar garoow ayagoo faahfaahsan. bangiga adduunka ayaa ugu yaboohi doona wadanka Soomaaliya lacag gaaraysa 137.5 milyan xilli Soomaaliya ay la daalaa dhacaysa xaalada kala duwan. sida warkaani uu ku faahfaahinayo wariyaheena Cabdiraxmaan Yuusuf Kulmiye. agaasinka bangiga adduunka ayaa ansixiyay in lacag 137.5 milyan loogu yabooho Soomaaliya si wax loogu qabto abaaraha fatahaadaha dalka ku dhuftay safmarka coronavirus. sanduuqa horumarinta caalamiga ah ee bangiga adduunka oo soo marinaya mashruuca ka jawaabida xasarada Soomaaliya ayaa bixinaya dhaqaalahan. bangiga adduunka lacagtii uu ansixiyay ayaa qayb ka ah barnaamij loogu magac daray mashruuca ka jawaabida xasaradaha Soomaaliya ee loo yaqaan Somalia Crisis Response Project. waxaana ka faa'iideysan doona dadka barakacayaasha ah kuwa ku dhaqan magaalooyinka ama miyiga. barnaamijkan waxaa wax loogu qaban doonaa biyaha fatahaada, bulaacadaha iyo in lagu sameeyo buundooyin iyo wadooyinka yaryar. wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa soo dhaweeyay kana mahadnaqay deeqdan bangiga adduunka siinaya Soomaaliya. waxa aan aad u soo dhaweynayaa talada bangiga adduunka ee uu Soomaaliya ugu ogolaaday lacag dhan 137.5 milyan oo dollar oo wax loogu qabanayo xaaladaha dalka ka jira sida xanuunka COVID-19, fatahaadaha iyo abaaraha, ayuu yiri wasiirka maaliyadda Soomaaliya. Soomaaliya ayaa haatan la daalaa dhacaysa safmarka coronavirus iyadoo ay u sii dheer tahay fatahaado ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya. dad fara badan ayaa u soo dukaameysi taga suuqa Bakaaraha xilli wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ay ka digayso goobaha la isugu yimaado cabsi laga qabo inuu faafo xanuunka coronavirus. dad fara badan ayaa u soo dukaameysi taga suuqa weyn ee Bakaaraha xilli wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ay ka digayso goobaha la isugu yimaado. in ka badan 1,000 qof ayaa isugu yimaada suuqa weyn ee Bakaaraha. waxaa xusid mudan inaysan jirin cid qaadatay fariimaha caafimaad ee soo dirayaan dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo wasaaradda caafimaadka. fariintaasi oo ahayd in la kala fogaado ama la xirto waji xirka iyo gacmo gashiga. taas cagsigeeda dadka ayaa wax waliba u kala suuqa weyn ee Bakaaraha iyagoo aanan xiran face mask. ka duwan waxaa jirta in gaarida BL-ka ee magaalada Muqdisho ay si caadi ah u shaqeynayaan xilli cabsi ba'an uu ka jirto dunida oo ah inuu sii faafo xanuunka coronavirus. suuqyada adduunka ayaa ah kuwa xiran dadkana aysan loo ogolayn inay isku gooshaan ganacsigana warkiisa daa. balse Soomaaliya waa ay ka duwan tahay marxaladaasi oo waxaa si caadi ah u shaqeynaya ganacsatada caadiga ah. goobaha ganacsiga ayaa si caadi ah u furan. dhanka kale dadka ayaa caadi isku gooshaa. wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa gaarsiisay agab caafimaad Dhuusamareeb. sida warkaani uu mar kale ku eegayo wariyaheena Cabdiraxmaan Yuusuf Kulmiye.
wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta agab caafimaad gaarsiisay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug taasi oo loogu talagalay ka hortagga iyo xakameynta cudurka safmarka ah ee COVID-19 agabkan oo isugu jira sariiro iyo qalab kale oo loogu talagalay ka hortagga cudurka safmarka ah ayaa waxa kala wareegay dhigada wasaaradda caafimaadka Galmudug waxaana ay ku bogaadiyeen dadaalka wasaaraddu ay dowlad goboleedyada ku geynayso daawooyinka iyadoo si wadajir loo kaashanayo dhammaan maamul goboleedyada dalka ka jira sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxay maanta agab caafimaad u dirtay Sool iyo Sanaag kuwaasi oo haatan laga soo sheegay kiisas hor leh oo cudurka COVID-19 ahi dowladda Soomaaliya ayaa dadaal xoogan galinaysa sidii loo xakameyn lahaa caabuqan adduunka sida weyn u saameeyay ee COVID-19 iyadoo la kaashanaya dhammaan dowlad goboleedyada dalka ka jira si loo ilaaliyo guud ahaan badqabka shacabka Soomaaliya halku warkaas idan kaga imaanayo daawadayaal waa stuudiyaha Business Connect xaruntiisa magaalada Muqdisho iminkana akhbaaraadka caalamka dowladda Shiinaha ayaa beenisay xatooyo ay u geysarabtay internetka magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa Shiinaha ku eedeeyay inuu dhici rabay qadka internetka xilli ay socoto in la faahfaahiyo ama la balaariyo talaalka coronavirus Shiinaha ayaa ah goobtii uu ka soo bilowday xanuunka safmarka ee coronavirus warki oo idinkaga imaanayay telefishinka Business Connect stuudiyiisa magaalada Muqdisho waanaga inta warka waxaa soo saaray Cabdiraxmaan Yuusuf Kulmiye anigoo kooshanaya idin waramayay warkan war lamida intaan ku kulmi doono dhammaan bahda Business Connect oo idinkaga tagaya sidaas nabadgelyo farsamada iyo kaamiradu waxa uu ahaa engineer Liibaan waad ku mahadsantihiin la socodka iyo daawashada warkayaga waxa inaga xasuusin ah warkayaga cid uu sheego inay ka daawan doonaan aaladaha aynu ku leenahay barta internetka ee Business Connect